Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan islaamay asxaabta halkan ku xidhan meel kasta aad joogtaan. Salaan ka bacdi muuqaalkeennan wuxuu ku saabsan yahay maanta ahmiyadda uu waqtigu leeyahay. Waqtiguna wuxuu ka mid yahay nimcooyinka ugu waaweyn ee Ilaahay uu nagu manaystay. Haddaba in waqtiga qiimihiisa aan isbaraarujinaana waa muhiime. Waxba iga hordhici maayo muuqaalkee ku soo dhawaada. Waqtigu si degdeg ah ayuu noo dhaafo oo waxaanu shaki ku jirin Quraanka Kariimka ah iyo sunnaha Nebigu in waqtiga ahmiyad weyn ay siiyeen oo ay cadeeyeen inuu yahay nimcooyinka ugu waaweyn ee Ilaahay inagu manaystay. Taasina waxa u daliil ah inuu Ilaahay ku dhaartay bilowga suurado badan oo Quraanka Kariimka ka mid ah sida suuradda Wal Casri. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. علماء التفسير waxay dhamaantood cadeeyeen hadii Ilaahay wax ku dhaarto ayay tusaso ahmiyadda uu leeyahay qiimaha iyo ahmiyadda uu leeyahay shaygaas. Sunnaha Nebiguna waxay cadeeyeen ahmiyadda waqtigu uu leeyahay oo waxa ay qirayaan inuu Ilaahay dadka maalinta qiyaame kula xisaabtamayo qiimaha waqtiga. Mucaad ibn Jabal waxa laga wariyay inuu Nebigu yiri ruux aadama ah ciribtiisa ka dhaqaaqi mayso Ilaahay agtiisa ilaa la weydiiyo afar shay. Afartaa shay maxay ahaayeen? 1 wixii cimrigiisa uu ku dhameeyay. 2 wixii dhalinyaronimadiisa uu ku dhameeyay. 3 maalkiisa meesha uu ka keenay iyo meesha uu ku bixiyay. 4 cilmigiisii wuxuu ku bixiyay cilmigii uu bartay oo Ilaahay u fududeeyay wuxuu ku bixiyay. Waad aragtaa inuu Ilaahay si guud inagula xisaabtamayo cimrigeena oo dhan. Haddana Ilaahay si gaar ah inooga weydiinayo dhalinyaronimada. Inkasta oo dhalinyaronimadu ay tahay qayb ka mid ah cimrigeena, laakiin waxay leedahay qiimo gaar ah maxaa yeelay waa waqtiga uu qofku ugu firfircoon yahay uguna xoog badan yahay. Badanaa maanta dhalinyarada radio dumarka isugu jira ee Soomaaliyeed waxaad arkaysaa inaan Soomaaliyeed oo muuqaal uga sii dhiibay TikTok ayay ku jirtaa muuqaal ayuu sii dhiibay iyo heestii cusub la soo qaadayba sidii ay isku soo dulqaban lahaydba ayay waqtigooda hablaha Soomaaliyeed ee ku lumiyaan iyo TikTok sida uu isticmaali lahaayeen. Sidoo kale wiilasha Soomaaliyeed waxaad arkaysaa wiil 2 saacadood ku luminaya ciyaarto kubad ciyaaraya ama kooxaato kubad ciyaaraysa. Kadib isagu wuxuu ka faa'iidayaa dayac waqtigiisa dayacay. Laakiin ciyaartoygaas ma ogtahay ciyaartoyga daawanaysid inuu usbuucii mushaar ahaan u qaadanayo qaarkood ay u qaataan 2 milyan qaarkood kumanaan kun oo dollar ay u qaataan. Adna aad 2 saacadood oo aad ku baran lahayd xirfad oo aad ku baran lahayd waxyaalo kale oo aad Ilaahay ku bari lahayd ayaad ku luminaysaa inay yaro shaqaysanaya oo dantiisii wata. Horeyna Soomaaliga uu mahmaaday tiisa madaryeela mid kale ku daran. Waxaad arkaysaa mid tiisina ilaaway mid uu qof kalena dantiisii wata lagu mashquuliyay. Dhalinteenna halkaasi maanta oo ay u badan tahay Ilaahay afaansiye qiimaha waqtigu uu leeyahay. Noloshu marka uu leeyahay waqtigaaga ka faa'iideyso maaha inaad ku xisaabtantid saacadaasan ka faa'iideysana ee sekinba ku dhiiba kana faa'iideyso. Haddaad maqashid aqoonyahan, injineer, dhakhtar, caalin waa dad waqtigooda ka faa'iideysta. qofka loo leeyahay waa aqoonyahan, qofka loo leeyahay waa dhakhtar. Hadduna waqtigiisa ka faa'iideysan lahayn iyo aqooni lahaa iyo soo magac qaadi lahaa iyo magaciisa soo hadal qaadi lahaa hadduu ahaan lahaa mid waqtigiisa lumiya
mid maalayacniya oo TikTok iyo Facebook iska dhex fadhiya mid baa soo hadal qaadi lahayd maya weeye su-aasha. Haddaba ka faa'iidayso waqtigaaga. Oraha Soomaaliyeed baa ahayd waari meyside war hakaar adduunyadana lagu waari maaye. Haddaba aan gudogol bal culimadii hore islaamka iyo asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqtiga waxay ka dhaheen iyo siday u arki jireen. Nabiga xadiis shariif ah wuxuu ku yidhi waqtiga ayaa hadli doona. Ibnu aadanow anigu waxaan ahay maalin cusub camalkaagana makhraati baan ka ahay. Iga faa'iidayso maxaa yeelay ma soo noqonayo ilaa maalinta qiyaame. Iga faa'iidayso waqtiga ayaa sida ku hadlay. Wuxuu yidhi imaamkii weynaa ee Ibnu Qayyim waqtiga oo la lumiya wuxuu ka daran yahay dhimashada maxaa yeelay lumida waqtigu Ilaahay iyo maalinta qiyaame ayay ka goynaysaa laakiin dhimashadu adduunyada iyo dadka saaran ayay ka goynaysaa. Hadalka waxaa yidhi Ibnu Qayyim Allah u naxariiste. Ibnu Mas'uud ayaa wuxuu yidhi uma murugoodo weligay sida aan uga murugoodo maalin ay qoraxdu dhacday oo cimrigaygu aanu naasuqin oo aanan camalkayguna aanu siyaadin. Uma murugoodo maalin ay qoraxdu dhacday oo aanan ka faa'iidaysan sidaan uga murugoodan. Dadka hore culimadii hore waqtiga waxay u arkeen dahab dheemal. Cumar Cabdicasiis wuxuu yidhi habeenka iyo maalintu way ka shaqaysanayaan adiguna ka shaqayso oo dadaal. Mid ka mid ah salafkii hore ayaa wuxuu yidhi ninka maalin waqtigiisa ka mid ah ku dhameeya waxaan ka ahayn waajib uu gutay ama si xaq uu gutay ama si sharaf uu dhagax u dhigtay ama si mahadnaq uu helay ama si khayr uu shaqaystay ama si cilmi uu bartay. Ninkaasi waa nin maalintiisaasu caasiyey oo maalintiisaasu ay ka khasaartay. Xasan al-Basri wuxuu yidhi u degdeg ajashaada hana odhanin berri adigu garamaysid goorta aad Ilaahay xaggiisa u soconaysid. Haddaba waxaa jira dhalinyaro tiraada berri baan waxaan qabanayaa berri baan wax baranayaa berri baan mustaqbalkayga iyo aan u sii dadaalayaa aan wax sii baranayaa. Dhalinyaro berri baan waxaan qabanayaa inuu odhanay ana ficil sameyn. Xasan al-Basrina wuxuu yidhi adigu garamaysid waqti aad Ilaahay dhankiisa u socdaanaysid maanta ugu degdeg buu ku yidhi u orad sida aad wax kasta u sii qabsan lahayd inta adduunyada aad joogtid. Rasuulkuna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi waxa kaliya ee ahlu jannuhu ay ka shaleeyaan marka ay jannada galaan kadib waa saacadii dhaaftay iyagoo aan Ilaahay xusin. Ahlu jannuhu marka jannada galaan waxay ka shaleeyaan saacadii yareed dhaaftay aan Ilaahay xusin. Maalintii aad hal saacad bashatay 20 daqiiqo ayaa subxaanallah 4,000 jeer odhan kartaa. Subxaanallah 4,000 jeer baad odhan kartaa. Cumar ibn Khadaab wuxuu yidhi anigu waxaan nacaa wiil muslina oo waqti firaaqa haya ee meel iska fadhiya oo camal adduunyo iyo camal aakhiro aan midna ahayn ayaan ka murugoodaa buu yidhi Cumar ibn Khadaab. Haddaba waqtigu waa nolosha ninka waqtigiisa dayaca noloshiisa ayuu dayacay. Waxa laga yaabaa in aan aragno dad badan oo waqtigooda siyaabo kala duwan u luminaya oo sanadba sanad u sii dhawey oo sanaduna dhaafeen adduunyadana ka tagaya iyagoo aan wax raad ah ku reebin oo aan buugaagta taariikhda aan qorin. Haddaba waqtigaaga ka faa'iidayso daawado waqtigaagana la ka faa'iidayso. Haddaba muuqaalka xiga waxaan ku soo qaadan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo sidaad waqtigaaga u maareyn lahayd sidaad u nadaamin lahayd waqtiga nidaamka aad u dejin lahayd ayaa muuqaalka xiga ku soo qaadan doonaa. Inta muuqaalka xiga isugu imaano waxaan baraarujinayaa ugu horreyn
haddaad channelka ku cusub tahay subscribe baad saaraysaa, haddii hore noola joogtayna muuqaalka like baad saaraysaa. haddaba inta muuqaalka xiga aan sugay mana waxaan iga tegayaa amaano Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.